marka kursiga aan soo galay ninka aadan barro oo saaxiibka ee waqti hore ayaan siyaasad isla bilawn asaga laakiin xoogaa waa iga yar nasiib fiicnaayo hore aad u soo galay kursiga laakiin anagoo maartay LDP chairman ah isla bilawn marka waxaan xasuustaa anagoo hal gaari isla isticmaalayna marka ani xoogaa duqaalka igu yar istaageen asaga waa la fasaxay marka hore marka kursiga aan soo galay wuxuu i dhahay niyow dhinaca diinta aan laga marin dhinaca madrasada aan laga marin aniga kursiga markaan soo galay madrasada iyo diinta ayaan ma aragtay isku day dhinac walba aan dadaal ugu sameeyay inaan kor u soo qaado hadda aadan barre waxaan u maleynaa intaan hadda kursi soo galnay madrasada shanaad miyaan u maleynaa ayaan fundraising u samaynaynaa maalin dhaweed madraso oo lafay constituency aan samaynay 95 milyan ayuu ku guray meesha hal madras haddii waxaan isleeyahay niyow tiideed ma gaarsiin karnaa tan wasiirka aadan bare ducaale waa ogahay markii aan barnaamijka kula jirnay taamka hore arrin diin asaga wuxuu dhahay aniga gacan aan ku siino wuxuu dhahaa qofkii arrin fundraising madrasa ama masaajid ama wax diin xarsan oo qaba wuxuu leeyahay aniga number baan ka ahay tii ilaa haddan wuu muujay aad ma santahay mashmuuca wasiiri waxaan ku raacayaa xildhibaanadii hortayda hadlay bogaadinta aan bogaadinayna wasiirkeena oo dhabtii lafdhabar u noqday howlaha diinta iyo dacwadda gaarisa keliya maaha guud ahaanba gobolka waqooyi bari iyo meel alla meeshii loogu yeero waddanka Kenya wasiir arrintaa waan ku haynaa abaalka waan ku haynaa jazaaka allah khayr ilaahay jazadaada aakhira ku kabo annagana mataqaanaa kuwii ka faa'iideysta juhdigaaga allah naga dhigo maxaad celinahay wasiirka ducaale oo inta badan waqti kastana soo garab istaagay arrimaha diinta markuu MBA ka ahaa township hadduu wasiir noqday oo aad siyaasadda loo ogolaan laakiin wali arday ma arrin diinta wali uu dhex taagan yahay oo ka shaqeynaya mid kale waxaan u mahadcelinayaa si saaxiibaday wasiirka aadan ducaale oo aad u garab istaagay arrimaha diinta waxaan lahayn wixii aakhira ku anfacayo waa sadaqatul jaariya haddii madrasa dhisto oo diin lagu barto ama quraan lagu barto inta wax la baraya ijrun baa ku soconaya kulay ijirkiisa asaga aas geystay maba gaari karnee hadda baan bilaabaynaa anakana insha Allah ina maaragtay horta asagana u duceyno inuu ilaahay maaragtay aas ku dhowro aakhira aas ilaahay ajir ka siiyo intaas horta aan faataxada nu marnaba